الرحيم runtii maanta shirkan jiraad waxaan u qabanayaa runtii inaan ka yara warramo dhowr arrimood runtii intaan joogay waddanka iminka ilaa 8 bilood baan madaxweynaha iyo magacaabaan joogay safiirka Djibouti ee Soomaaliland waxaan doonayaa marka hore inaan ka yara sheekay wax qabadka safaaraduhu waxay yihiin safaaraddan Djibouti runtii markii aan tagay xiriirka Djibouti Soomaaliland runtii aad iyo aad buu sii kordhay horena wuu jiray laakiin waxaan idin sheegayaa runtii maanta xiriirku inuu meel wanaagsan marayo waad ogeedeenoo bishan 6 Juulaay 6 wasiir ay madaxweynuhu runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle la kulmeen oo idinka hadii halka taswiirta ku arkay waa markii ugu horeysay 6 wasiir oo xukuumadda Soomaaliland ama tii hore ama tan maanta aan joognay baan ka mid ka ahay ay runtii ka soo qayb galaan si wanaagsan loo soo dhaweeyay 6 wasiir walba wuxuu la kulmay dhigiisii waxaana la kala saxaxday memorandum of understanding wax la yiraahdo ama isfahan labada wasaaradda kale si ay ula shaqeyn lahayd bishan soo socota September dad baa tababarana lagu qaadaya oo Djibouti man doona haday noqoto diblomaasiyadda haday noqoto waxbarashada muhiimadda safiirka marka lagu leeyahay safiirku waxa weeye wuxuu matalayaa qaranka wuxuu matalayaa marka hore qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha shacabka waxa weeye afarta shay ugu muhiimsan marka safiirku waxa weeye inuu xiriirka diblomaasiyadeed ama siyaasadeed sare u qaado oo sii kordhiyo oo hagaajiyo mar walba ta ganacsi ee commerce-ka maalgashi waddanka uu tagay oo ka keeno waddanka Soomaaliland la keeno si uu maalgashadaan iyo ta saddexaad sida wadamada jaarka oo kale tan aan joogo oo kale Djibouti ka mid tahay iyo Ethiopia oo kale in xagga security-ga laga wada shaqeeyo maadaama caalamka sad ka war haysaanba maanta arrimaha security waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin argagixisooyin badan hawlo badan ay jiraan taan aan ka wada shaqeeyno iyo jaaliyadaha ku nool waddanka taa haddaan ka gudbo wad ogeydeen safarka dhawaan wafdigu ku yimid dalka waxa ahayd safarkii shariidaha Djibouti TV-yada safaaradaha 16 safaaradood baa jooga Jamhuuriyadda Djibouti 9 waa la kulmay safiiradooda runtii ay ka mid yihiin waddanka markhaati ka ahaa safiir ku-xigeenka Ruushka oo aniga halkan keenay xiriir baan jecelnahay dhawaan inuu bilaabmi doono wadamada iyo wadamo kale oo Carbeed iyo wadamo kale oo runtii Fariiska ah doonayna waddankeena haday noqoto xagga biyo-gelinta xagga booliiskana laga tababaro marka xiriiradaasna waad arki doontaan waxaan kaloo idin sheegay in wasiirro ka tirsan xukuumadda ay iman doonaan Djibouti dhawaan kama hordegayo xiriirkaas runtii maanta meel aad u wanaagsan buu marayaa marka waxaan runtii ka codsanayaa saxaafadda in la yaro boonbooniyo laga daayo waxyaabaha sumcadeena ama qarankeena runtii wax u dhimaya saad ka war haysaan daanu marka waddanka dibaddiisa aad joogto wax badan baad dareemaysaa laakiin markaad gudaha joogto dareenka aad dareemayso ka dibadda ayaa ka badan marka lagu weydiino war hebel maanta saxaafadiina waxa qortay xorriyadda waa la ogolaya dimuqraasiyadda waa la ogolaya laakiin code of conduct ayaa runtii loo baahan yahay in xorriyaddu yeelato xuduud ta kale ee muhiimadda ah runtii bariyahan xisbiga haddaan u soo noqdo qodobka labaad doonaan ka hadlo xisbiga mucaaradka ee waddani bariyahan aad baa loo boonboonanaya madaxweynaha wadankii ogaa hawl buu yara baxay caafimaadkiisa wax laga sheegay runtii waana ayaan daro qofka caafimaadkiisa iyo ladnaantiisaba iyo xanuunkiisaba Ilaahay baa haya dad ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo runtii aad iyo aad runtii dadka dibadda jooga runtii wala yaabeen ama waddanka ay matalayba markay ay weydiiyaan dadka asxaabta nahay ama mas'uuliyiin qaarkooda runtii wax lala yaabo noqotay in madaxweynaha qaranka hawl ku maqan yiraahdo ama waa sakaraad ama waxba ku dhacay ama moogtay ma soo noqonayo waa ayaan daro marka waxaan leeyahay xisbigaas inuu ka waantoobo waxaad arkaysan jiraadka shalay daraad maantadan aan la hadlayo waxyaabo badan oo munaasab ahayn waxay ka hadlayaan madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo 3 bilood baa harsan madaxweynaha 3 bilood baa harsan ha ka hadlaan xisbiga mucaarad xisbi musharax baa jira kulmiyaha ka hadlaan Muuse maanta musharaxa ma garanay maanta Siiraayo wax loo xaganay sababtoo ah waxba soo qabtaan xukuumadda horena la soo shaqeeyay safiirka Ireland baan ahaa 7 sano baan ka bahatay Daaryaale 2003 markuu madaxweyne Mucaad laba xilli oo isku hayay xiriirka jaaliyadaha iyo safiirka Ireland afayeen mar dawladdu aan wahaa dibadda time waqti ay jirtay فرق واد قرن كراسن كنت المليون wax ka yar ay xukuumadda lagu maamulayay maanta budgetkan wuxuu maray 300 milyan waxa muhiimadda kale ee maanta wasaaradihii baa la dhisay ciidankii darajooyinka lagu dhici kari waayay madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo maanta runtii ayuu u sameeyay marka waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka waliba gudoomiyaha Cabdiraxmaan 82 xildhibaan ay maanta mas'uuliyadooda haysay ilaa 2005 waxa hor yaala
dowladdii horaan kaga tagnay xeerkii xisbiyada ilaa imika 2005 baa hadda kalbadeeda u fiirsada inay doorashada cidda bedeli doonta la doorta xildhibaanada inay ka shaqeeyaan xeerka xisbiyada ilaa imika gudoomiyaha iyo xisbiga iyo baarlamaanka toonana uma dhaqaaqeen ka kaaleta waxa hor yaalla maanta oo kale xisbigii xeerkii degmooyinka iyo gobolada waxa hor yaalla xeerkii lagu dooranayay musharaxiinta hadeeg 20 xeer ba maanta isdul saaran baarlamaanka Cabdiraxmaan hor yaalla oo maxamed ka qaban since 2005 maanta budgetka waan ognahay maxay dooyeen golaha baarlamaanka waa $2 milyan cid la xisaabtantay mar walba marka uu leeyahay halala xisaabtamo xukuumadda isaga horta ba weydiiseen $2 milyan cid la xisaabtantay sanadkii iyo halka la mariyo iyo xisaab celinteeda marka waxaan leeyahay waxa soo xeerara inuu maanta Cabdiraxmaan gudbiye ahayd oo ka sheekeeyo laba xisbiye hore jira waan ognahay oo marka labadooda gudoomiye ku foolgareeyeen xamar tagay waraan waxaan ka baqayaa Cabdiraxmaan qudhiis malaha markuu xisb doorashada waayo inuu xamar tagi doono taasana runtii marka Cabdiraxmaan waxaan leeyahay ka waanto waxa maroodii takarta saaran warka kala saaran buu arkay warta gudaha baarlamaanka ay xisbiga aad matasho dib ugu noqo adduunyadana lama arag xeer 14 buu bedelay oo ognahay nin gudoomiye baarlamaan ah maxaa haydo haddana xisbi mucaarada ah isagu soo shaar ugu tasho marka waxa weeye anigu waxaan leeyahay war qarankani hore u socday safiiradu waxay ka mas'uul yihiin qaranka madaxweynaha qudhooda mas'uuliyiin baa jirta ka hadasha runtii aan shaqadooda ahayn mararka qaarkood waxaan leeyahay qudhooda waxani waxay u taala wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wakiilada oo ka wakiila qaranka iyo madaxweynaha haloo daanin walba shaqadiisa marka intaas aan ku soo gabagabeynaa wad mahadsantahay